نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. سلسلة تعليقات على الخطب للشيخ القاضي عثمان محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. خطيبك جزاه الله خير الجزاء runtii wuxuu inagala hadlayay mowduuc qiimo badan oo ku saabsan al-ittibaac wa tarku al-ibtidaac, yacni in la raaco sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam, lagana fogaado bidcada iyo wixii diinta lagu soo kordhiyo iyadoo diin laga dhigayo aan diinna ahayn. marka ikhwaani, u horeyn naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa, taasi oo ah wixii alla inaga doonay waxaynu ka awoodno inaynu kala nimaadno, wuxuu inoo diidayna inaynu ka dheeraanno. maxaa yeelay waa wasiyatullaahi alawwaliina waalaakhiriin, waa tii uu alle u dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyeyba. walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah. alle wuxuu tilmaamayaa idinka iyo kuwii kitaabka la siiyey ee idinka horreeyeyba waxaan u dardaarmay alla ka baq. runtii waxaynuna joognaa wakhti alla ka baqu wax anfacayo, waayo intaan toobadda la xidhin ee qofka aanay naftu qarqarada soo gaadhin ee xuurtu yeedhin, yacnii toobadda waa laga aqbalayaa oo alla ka cabsigu waxbuu tarayaa. laakiin haddii xuurtu yeedho, alla ka cabsigu waxba tari maayo. fircoon ba anfici waa markii badda uu ku qarqoomay inuu yidhaahdo allaan rumeeyey subxaanahu wa tacaala. kelmadda labaad ee aan raacin lahaa waxa weeye inaynu ogsoonaanno dariiqa qura ee lagu badbaadayaa inay tahay dariiqa uu la yimi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. dariiqa in la raaco waa ka lagu badbaadayo. wixii ka soo hadhaa waa dariiqu dalaala, ayna waajib tahay in laga toobad keeno oo ciddii dariiqaa ka weecatay ay ka toobad keento. nebiguna sala allahu calayhi wasalam bani aadam alla soo bixiyey waa kii ugu sharafta badnaa. waxa uu tilmaamay nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo carabkiisa ku caddaynaya, anaa sayidu waladi aadam walaa fakhra. anigu ilmo nebi aadan sayidkoodaan ahay buu yidhi, anaa sayidkooda ah, wax faanahina ma jiro, faani maaya buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, ee xaqiiqada ayaa sidaas ah. marka ilmo nebi aadan anaa sayidkooda ah. waxaana waajib ah oo dhammaanteenba inagu waajib ah oo aan sunne ahayn nebiga sala allahu calayhi wasalam inaynu ka jeclaanno wax allaaliya wixii ka soo hadhay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray, inaynu ka jeclaanno xitaa nafteenna kulay ku tahay. saxaabigii la odhan jiray cabdilaahi ibnu hishaam waxa uu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaanu maciisa ahayn buu yidhi, wa huwa aakhidun biyaddi cumar ibnu khadaab, xadiiska bukhaariga. iyadoo nebigu sala allahu calayhi wasalam gacanta cumar ibnu khadaab uu haya baan nebiga la joognay buu yidhi. dabadeedna cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi, yaa rasuula allah waladii nafsii biyaddi innii la axabu ilayka min kulli shay ila min nafsi. rasuulkii allow allaan ku dhaartaye wax kasta adaan kaa jeclahay naftayda mooyaane dhammaan wixii kale adiga ayaa loogu kalgacal badan yahay. nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam, laa yaa cumar, maya cumarow, ilaa aad iga jeclaanayso xataa akuuna axabba ilayka min nafsik, ilaa aan ka noqonayo xitaa naftaada xaggeeda mid looga kalgacal badan yahay, oo naftaada arrintu markay soo gaadho iyo aniga
aniga aad markaa ii kalgacal roonaato arrintaasi arrin kuu saxa maaha, arrin dhaba maaha. cumar intaa kadib wuxuu ku dhaartay xitaa naftiisa kulay ku tahay hadda laga bilaabo inuu nebiga ka jecel yahay sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu yidhi al'aana yaa cumar, hadday tahay cumarow. xaafid ibnu xajar markaa casqalaani fatxulbaariga markuu fasirayay wuxuu yidhi al'aana carafta bima yajibu calayk, hadda ayaad garatay wixii kugu waajibaha. nebigu al'aana yaa cumar markuu leeyahay, cumarow haddaad aqoonsatay wixii waajib kugu ahaa, haddunbaad garatay oo ah naftaada xitaa kulay ku tahay inaad aniga iga jeclaato. sidaa darteed bay saxaabadu u dabaqeen kalgacalka nebiga sala allahu alayh wasalam. saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu dathina markii ay nimanka quraysheed qabteen ee ay dilayeen ee ay dilka u soo xidheen, waxa ay ku yidhaahdeen markaa abu sufyaan uu markaa ku yidhi ma jeceshahay inaad markaa ehelkaagii iskaga dhex badbaaddo halkaagaa joogto oo waxa weeye markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam adiga beddelkaaga halkan ku xidhnaado oo isaga halkan maanta lagu dilayo. wuxuu yidhi iska daa inoon halkan uu beddelkayga ku xidhnaade inaan gurigayga joogo isagana ehelkiisa dhexdiisa qodaxi ku muddo, iska daa wax kale in qodaxi muddo, wallaahi ma jecli buyo annaan ehelkayga dhexdeeda aamin ku ahaado, mid aan marnaba ka raalli noqonaya maaha, dil iyo wax gaadhadaa. sidaa aawadeed baa waxa weeyaan dalxa ibnu cubaydillaah maalintii uxud waxa uu samaynayey inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu lahaa naxrii duuna naxrik, rasuulkii allow dhuuntaydaa mar kastaba dhuuntaada ka sokaynaysa, leebabkuu isaga dhigayey, marnaba ma aqbalin nebiga in leeb ku dhaco, leebkii la soo ridaa isagaa isu dhigayey. taasi waxay keensanaysay inaanu oggolayn waxa weeye nebiga sala allahu calayh wasalam naftiisa inay wax gaadhaan. sacad ibnu mucaad laftiisu sidaasi leeg maalintii beder waa kii nebiga ku lahaa markii uu arkay ciidanka culus ee aanay ku talagelin ee ay la kulmeen, waa kii lahaa nebigii allahu sala allahu calayh wasalam dee waxaynu ku soo talagallay safarlayda inaynu la kulanno, iminkana ciidan baynu dee isqaabilla aan safarlaydii ahayn, marka adigu halkanaanu cariishkaaga dhisayna halkan dambe dagaalka ha soo gelin, hadday tii aanu rabnay noqoto oo aynu ka guulaysanno dee hadal male alxamdulilah, haddayna jebiyaan rukuubkaaga iyo waxaagaba waanu kuu diyaarinaynaa, dagaalka ha soo gelina adigu dibu carar oo madiine qabo, waayo kuwaannu halkaa kaga nimi ma aha kuwa aanu kaaga kalgacal roonnahay, sidaannu kuu difaacayna si lamida bay kuu difaacayaan, manay ogeyn inaynu ciidankan kulmayno ee hadday og yihiin kaamay hadheen, marka annagu waxaannu doonno aanu mudanne adigu meesha marna ha iman. waxaad arkaysaa saxaabada nebigu ridwaanullaahi calayhim nebiga sala allahu calayhi wasalam kalgacalkiisa maqaamka uu ka joogay, taasi baa qof kastoo muslimana waajib ku ah, oo cirdigiisa iyo sharaftiisa haddii isaga meel lagaga dhacayo marnaba inaanu ka raalli noqon nebiga cirdigiisa iyo sharaftiisa in meel lagaga dhaco ama naftiisa si kale wax u gaadhaan wakhtigii uu noolaa ama sunnadiisa si kale loogu xadgudbo. sidaa aawadeed baa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi laa yu'minu axadukum xataa akuuna ilayhi axabba min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin, xadiiska saxiixaynka. allan ku dhaartay axad idinka idinka mida iimaan lagama helin ilamaa waxa weeye aan noqonayo ka markaa isaga laga markaa looga kalgacal roon yahay nebiga uu ka jecel ee cidda uu jecel yahay nebiga ay tahay naftiisa iyo ubadkiisa iyo waalidkii dirkaba ilaa uu aniga iga jeclaanayo. marka runtii nebiga maxabbadiisu sala allahu calayh wasalam waa mid waajib oo sharci ah, ayna tahay dadka mu'miniinta quluubtooda inay ku weynaato. kalgacalkiisana waxaa ka mid noqonaya oo kow ka gelaya in waxa weeye la raaco oo sunnadiisa la nooleeyo oo dariiqiisii la soo nooleeyo oo lagu salliyo marka la soo qaado sala allahu calayh wasalam, maadaama nebigu yidhi albakhiilu man dukirat cindahu falam yusalla calay. bakhayl waxaa la yidhaahdaa ka inta agtaysa laygu xuso igu sallii waaye, salliga igaga bakhayla, kaasi baa la yidhahdaa buu yidhi. markaa sunnadiisa in la raaco oo waxa weeye la adeeco nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ina amrayo oo wixii waxa weeye uu inooga warramo la rumaysto
waayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah sahlulcilmigu tilmaameen markaad leedahay shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuul allah markaad nebiga sala allahu alayh wasalam risaalo u qirayso allana subxaana wa tacaala waxdaaniyada iyo ikhlaaska u barax tirayso nebiga shahaadada aad u qiraysaa waxay keensanaysaa marka itibaacuhu fiima amar waxa uu amrayo in lagu raaco lagu adeeco oo waxa weeye nebiga lagu adeeco daacatuhu fiima amar in lagu raaco oo lagu adeeco waxa uu amrayo wa tasdiiquhu fiima akhbar in loo rumeeyo wuxuu ka warramo wixii allaaliya wuxuu inooga warramay qiyaamaa jiraya sidanaa jiraysa calaamaad noocana dhacaya wax allaaliya wuxuu war inoo sheegay dijaal baa soo baxaya sidanay noqonaysaa dhammaan in loo rumeeyo wajtinaabuhu maa nahaa canhu wazajar iyo in laga fogaado wixii nebigu inoo diido an laa yucbad allah inaan alle lagu caabudin ilaa bimaa sharac wixii uu jideeyey nebigu mooyaane wax kale inaan alle cibaado looga dhigan oo lagu caabudin runtii nebiga sala allahu alayh wasalam sidaa kalgacalkiisu uu waajibka u yahay inaynu raacnaana ay waajibka u tahay kalgacalkiisuna cid uu la siman yahay oo lala simayaa aanay jirin waxa kaloo waajiba inaynu ogaanno wax allaaliya wixii alle lagu caabudayey inuu inoo dhammaystiray oo wuxuu inagala hadhay jirin maalintii jumcada ahayd ee waxa weeye saxaabadu ay joogeen ciddii xajiday ay joogeen meesha loo yaqaano carafa nebiga sala allahu alayh wasalam xajkii xajatulwadaac la odhan jiray xaju sagooti ee xajuu xajiye ugu dambaysay xajkii qura ee uu xajiyeyna ahayd ee uu markaa axkaamtana ku dhammaystiray waxa weeye xajka iyo umuuro badan oo diinta ah alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina alle wuxuu yidhi maantaan idiin dhammaystiray diintii maanta waan idiin kamilay nicmadaydana korkiina waan ku taam yeelay waa nicmatulislaame islaamnimadiina waa mid aan dhammaystiray nicmo la arko ka weynina ma jirto islaamnimadaasaanan diin ahaan idinka raalli noqday wax kaloo aan idinka raalli ahay ma jirto markaa diintu waa kaamil weeye waa diin alla dhammaystiray oo uu u caddeeyey ummadda nebigana inay kaamil tahay nebiguna waa soo gaadhsiiyey ummadda oo wuxuu kala hadhay ma jiro taasi waxay keensanaysaa in waxa weeye bidco laga fogaado oo aan bidco loo dhowaan sida aawadeed baa imaamu maalik ibnu anas imaamu daar ilhijra shaykhii imaamu shaafici imaamkii weynaaye imaamu maalik oo shaykhii imaamu shaaficina ah oo shaafici baa ardaygii ah waxa uu yidhi axdatha fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadun khana risaala oraha markaa sidaa macnaheedu yahay cidda islaamka ku soo darrisiisa bidco uu u arkayo inay wanaagsan tahay shakhsiga noocaasi ahi wuxuu ku dooday oo sheegtay in nebi maxamed diintii kala khiyaaneeyey buu yidhi qofka sidaa la yimaadaa ee intuu bidco diinta ku soo kordhiyo waxaan diinta ka mid ahayn yidhaahda waa wacan tahay waxay ka dhigan tahay buu yidhi inuu leeyahay nebigu diintii waa kala khiyaaneeyey oo intaanaa maqnayd oo anaa ku daray saasay ka dhigan tahay waayo maxaa yeelay buu yidhi alle wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum war maantaan diintii idii kamilay waxba idiima hadhin wax idii hadhay ma jiraan galabkii carrafee maalinta jumco ahayd sidaasi baa alle nebigiisa ku yidhi sala allahu alayh wasalam wax idii hadhay ma jiro maadaamoo la yidhi wax idii hadhay ma jiraan wax kaloo bidco oo lagu soo kordhiyo uma baahna shakhsiga bidcoolaha ah ee diinta wax ku soo kordhinayaana waxa weeye laba qodob mid uunbuu ku doodayaa isma se oga oo isagu isma laha imaa inuu yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam shaygan khayrka ah ee aan idiin sheegay jaahil buu ka ahaayo waanu garanayn taasina waa markaa kelimad afka weyn oo qof iimaan lahi aanu ku dhawaaqi karayn inuu yahda nebiga anaa ka aqoon roon oo uu jahli u nisbeeyo iyo imaa inuu leeyahay maye nebigu waa garanayey jahli u nisbayn maayo si cad buu u garanayey laakiin waa qariyey oo inooma sheegin taasina waa khiyaano oo ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulkiisa u tilmaamay hadduu siday tahay u gaadhsiin waayo inuu ummadda khiyaaneeyey taasina wax dhacay maaha
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله سبحانه وتعالى وحط المامي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك ويحي حق ربك قال لك سود شيء دتك جارسي حضاد سيدا سمي ويدو رسالة دي ما تقدن والرسالة دي مت جارسي ومدمتيد نبينا صلى الله عليه وسلم سيدا الله أمري بو يالي جمع لا أركو جمعي ugu ballaadnaa xajatul wadaa'i isugu yimi oo 100 kun kor u dhaafayay sida culama u siyar tilmaamaan waxa weeye ayuu markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu marxaati gashaday isagoo rabbina marxaati gashanaya oo uu yiri war diinta ma idin soo gaarsiin ala hal balaqtu khudbadiisii dheereed nabiga sallallahu alayhi wasallam dhowrka maalmood soo noqnoqotay ee uu umuraha badan kaga waramay war diintii ma idin gaarsiiyay buu yiri dabeedna saxaabadu nacam bay ahayd iyaga uga marxaati kacay nabigu wuxuu la haray inaanay jirin ee uu dhammaan soo gaarsiiyay ummadda nabigu dabad ilaahay buu marxaati gashaday intuu farta kor u fiiqay allahumma ashhad iyagana dabad ku soo celiyay ilaahu marxaati ka ahaw inaan gaarsiiyay oo aanan waxba kala harin rabbi yow marxaati ka ahaw rabbina been looma marxaati gashado markiibana waqtigii waxyiga aydo hadii in yari ka duwan tahay alla waa ku canaanan laha waayo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam meel yar haduu ka baydo waa lagu canaanan jira waxyi baa lagu hagay ummaduna way ku ijmaacsan tahay ahlu sunnah dhamaan way isku raacsan yihiin nabiga khada diiniya iyo gif diiniya marnaba inaan lagu sugaynin oo looga tagaynin marka jamaca inta leeg buu marxaati gashaday markaasay uga marxaati kaceen wuxuu la haray inaan jirin markaasuu isaguna alle marxaati gashaday rabbi oo marxaati ka ahaw inaan gaarsiiyay rabbina saasuu ugu sugay oo wax markaa ka daba yimi ma jiraan taasi waxay muujinaysaa nabigu sallallahu alayhi wasallam diin kaamil ah oo aanu waxba kala harin inuu ina soo gaarsiiyay waxa kale oo baadilka ka dhalanaya yahay ahlul bid'ah kasta ha ogaado ama yaanu ogaanin hadduu yiraahdo nabigu waa ogaa waana ina soo gaarsiiyo jahlina u nisbayn maayo marka gaarsiin la'aana u nisbayn maayo laakiin way luntay oo saxaabadii iyo meel dhaxay faradhix cidido marka faradhixdood bay ka baxday taa lafteedu waa baatil binas alqur'aan ilaahay baa ku tilmaamay qur'aanka inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahaafidun ummadihii hore diinta iyaga la oran jiray ilaashada iyaguna sida qur'aanka alla ku tilmaamay ilaalintii ay xaq u lahayd may siinin saasay diintu ku baabi'i jirtay laakiin diinteena alla isaga ballan qaaday inuu ilaalinayo inaga ilaalin inaga ma rabto ilaahay isaga ballan qaaday diinta inuu ilaashanayo waxaanu ku ilaalinayaa culimo raasikhiin ah oo cilmiga markaa ka feera buuxsaday oo aan waxba lagu soo dhex dari karayn maadaama sidaa tahay alla wuxuu leeyahay inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahaafidun annaga soo dejinay markaa qur'aankan iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam annagana ilaashanayna sunnada nabiguna waa ilaashantay kitaabka iyo sunnaduba waa kuwa la ilaaliyay marka runtii waxa wax laga xumaada ah intaas oo dhan markaynu tilmaanay oo ahlul bid'ah kastaana hays ogaado ama yaanu ogaanine nabiga iyo diinta inuu nuqsaan u tiirinayo waxa wax laga xumaada ah waxa loo yaqaano ihtifaalu bil mawlid an-nabawi sallallahu alayhi wasallam nabiga waqtigii dhalashadiisa in xaflada loo qabto oo ummadda in badani ay diin mooday taafada ahi taawi ummadda in badani ay diin mooday waxaanu leenahay tan noocaasi ah hadduu khayr yahay oo diin yahay nabi maxamed baa samayn lahaa sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii baa samayn lahayd hal axad oo sameeyana ma jiro taabiciintii nabiga saxaabadiisa soo gaaray aa nabiga arag ee saxaabada soo gaaray ayaa samayn lahaa taabiciintii oo aan saxaabada arag laakiin kuwii saxaabada arkay baa samayn lahaa aa'imadii muslimiinta samayn lahaa shaafiiciga kuwii la midka ahaa intaasi shayga ay samayn waayeen diin ka dhigan waayeen waxa weeye binas alqur'aan buu baadil ku yahay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا
ilaahay waxa uu tilmaamayaa qur'aanka inuu ugu cadeeyay cidda waxa weeye rasuulka alle la khilaaftanta inta hanuunku u cadaaday dabadeed ee dariiqii mu'miniinta dariiq aan ahayn marta waxa ay ka wali dhigatay baan uga wali yeelaynaa jahannamana waanu gelinaynaa bi Allah subhanahu wa ta'ala dariiq la marana kaasa ugu xun in dariiqii mu'miniinta la khilaafo warbal shayga nabi maxamed lagu khilaafayo nabi maxamed aanu samayn sallallahu alayhi wasallam ee dariiqii mu'miniinta saxaabada kowka ah ee saxaabadiisii laga waayay ee taabiciintii laga waayay taabicu taabiciintii laga waayay quruunul mufaddala saddexdii qarniga horeba aan ku jirin ee nimanka raafidada loo yaqaano ee faadimiyiinta la oran jiray masar xukumi jiray qarnigii afraad ay la yimaadeen iyaga oo 6 mawlid dejiyay ka nabiga qura ma ahayn 6 mawlid bay dejiyeen iyagoo kaga dayanayay nasaarada waxaanay christmas ka yiraahdaan 6 mawlid bay dejiyeen ka koobaad nabiga u dejiyeen sallallahu alayhi wasallam ka labaad ali ibn abi talib waxa weeyaan ka saddexaad faadimatu zahra xaaski ali ibn abi talib intii nabiga ah ka waxa weeye afraad حسن ابن علي او حسن كي marka ina علي بن ابي طالب كشناد حسين oo isaguna ibn علي ah labadaba faadima ay dhashay waxa weeye kalixaad khaliifkoodii marka joogay bay u dajiyeen lixdaas ay ka dhigeen 6 mawlid bay dajiyeen ka ugu sii riiq dheeraadayna ka nabiga ayuu noqday sallallahu alayhi wasallam hatta al'an baabi'ila kuwii kale iska baabee iyagana meelo marka shiicada iyo qolada ismaaciiliyada waxyaaba si wadwada waa jiraan marka runtii waa bidcad dalaala ah oo quwo nabiga sallallahu alayhi wasallam si kale u gaaraan markay waayeen kuwii xaaskiisa caayayay waa raafidada nimanka loo yaqaan oo ummaddu ay ku ijmaacsan tahay kuwooda qullaadahay inay ka farayihiin culimaa sunnah markay nabiga meel ay ka gaaraan waayeen xaaskiisii bay caayaan Aisha oo ay zaaniyad ku tilmaameen ahlul cilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin cidda Aisha wixii ilaahay ka bari yeelay quraanka inta aayadood la og yahay uu kaga soo dejiyay inay bari ka tahay cidda u nisbaysa inay gaala tahay waa ijmaac ahlul cilmi kuwaasi oo aan nabi maxamed nafuhayn oo xaaskiisii ka badbaadi waayay oo saxaabadiisii ka badbaadi waayeen oo Abi Bakar iyo Umar laba daaqood u yaqaana oo la og yahay siday u caayayaan ayaa horta mawlidka asal oo haayo keenay kuwa isiri waxa ka doodo waxa tidhaahdaan ma keenin iyaguna intaasoo qarniba intay soo dhaafiyeen qarniga afraad baynu nagu dejinay ay qarnigii toddobaad u soo rareen oo waxa weeyaan Mudaffar Abi Saciid oo markaa ahaa maligii Irbil ayay yiraahdeen isaga soo dejiyo nin wacanaha laakiin runtii ma soo dejin isagu dib u nooleeyay bidcada baaba ah ee raafidada ka timi ayuu jahilnimo daraaddeed dib u nooleeyay marka ikhwaani waxa intaasi diin ka dhigan weeyday maanta in diin laga dhigaa waa wax markaa baadil ah sida khadiibku inoo tilmaamayna saddex qolo mid uun baa wada oo waxan markaa tarwiijinaya oo wada imma cid jahli oo markaa ku sugan yahay oo aqoon darro halkan marinayso oo isla nabiga weyneeya laakiin aan garanaynin nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa oo la raaco bid'ana laga fogaado dariiqiisa la soo nooleeyo dacwada kor loo qaado ayaa markaa dariiqiisa lagu nooleeyaa bid'a lagu ma nooleeyo sida garan waado iska juhala ah iyo kuwa murtaziqa ah oo risqi ka deeyay oo isle sanadkii hal mar waxoogaa jeebka ah kaga shubataan ah ka hesheen qolada saddexaad waa muqriduun way waa kuwa dan leh oo doonaya diinta inay khaldaan doonaya oo raafidada iyo wixii lamid ah raba diinta inay khalkhaliyaan oo sunnada ummaddu ka fogaato si aanay nasri u helin oo gaala aanay uga adkaan waayo ummaddu markay sunnada u noqoto ee dariiqii nabiga noolayso markaas bay nasriga iyo ciziga helaysa laakiin inta ay jahli iyo bidca ku sugan tahay wax allaale iyo wax nasri oo xaqiiqoobaya ma jiro marka runtii arinta noocaas waa arin aad iyo aad looga xumaado nabiga magiciisana in cid wax lagu baryo lagu weydiisto sadaqaduba xaraan ka ahayd in la siiyo
ehelkiisana xitaa iyo ahlulbaytkana aan zakadaba la siinin waxa weeye waa shay aad u xaraama oo aad iyo aad u qaab daran ahlulcilmiguna waxay odhan jireen akhdu lmaali bilxayaa ka akhdihi bisayf salafku waxay odhan jireen maalka dadka in xishood lagaga qaado iyagoo xishoonaya oo qajilsan waxay ka dhigan tahay inaad seef kaga qaaday marka ummadda in nebiga lagaga xishoodsiiyaa sax maaha mid bay ka sheegayeen inta la yidhi war mawlidkii nebiga ku soo darbo wax yaroo aan badnayn qadar yar buu bixiyey idna waxa la yidhi war miyaanad xishoonayn mawlidkii nebiga ku soo darbaanu kuli nebiga sala allahu alayh wasalam markaasaad waxaa yar bixinaysa war nebiga aad nagu kashiftaanu kaaga xishoonno intaaba kugu siinee wallahi inaanan shilinku siiyan or naga tag buy nebigaad nagu kashiftay waxa weeye waa arrin aad u qaab daran wey nebiga magiciisii in dadka wax lagu weydiisto oo aan sadaqadaba qaadan jirin oo ehelkiisaba loo diiday uskaga dadka inay qaataan in magiciisii ummadda wax lagu weydiisto nebigu miyuu garan waayey maalinkuu dhashay maya maalinkuu dhashay nebigu wuxuu tilmaamay maalin isniineed inay ahayd taariikh ma sheegin nebigu sala allahu alayh wasalam yowm lithnayn buu sheegay maalin isniina inay ahayd markuu ummaddana wuxuu u jideeyey inay soomaan waxaana uu yidhi maalinkan isniintu ee la soomayaa waa maalinkan dhashay waana maalintii waxyiga laygu soo dejiyey labadaas sifoba maalinku waa leeyahay waa maalintii waxyiga laygu soo dejiyey waana maalinkan dhashay nebigu ma ilaawin waxa uu inoo jideeyey soon fii kulli usbuuca wiig kasta oo aan sanawi ahayn wiig kasta lala imanayo oo nebigu maalmaha wixii ay ummadda diin iyo dani ugu jirto ma dhaafin maalintii la badbaadiyey markaa nebiyullaahi muusa fircoonna la halaagay waa yowm alcaashuuraa waa maalintaynu soonno waa 10 bishan muxaram ee ina soo dhaafay ee bishii safar ka horreysay nebigu soon buu inoo jideeyey maalinkuu dhashay haddii sannad ahaan loo xusayo ciid laga dhiganayo nebigu marna ma dhaafeen maalinkiisiina wuxuu ku xusay soon oo uu yidhi maalinka isniinta sooma waa maalinkii aan dhashay waana maalinkii waxa weeyaan waxyiga laygu soo dejiyey xadiista kale sida ku cad waa maalin acmaasha bani aadamka la bandhigo oo alle loo bandhigo oo kuwa isu caloosha xun iyo aan loo dambi dhaafin iyadii khamiistuba maadaamay sidaa tahay dee nebigu intuu inoo jideeyey yaan la dhaafin amaa sanadkii baanu hal mar xusaynaa oo weliba waxaanu ku xusaynaa waxyaabo baadiloo annagu aanu samaysannay oo qasaa'idka midba mid intuu ku riyoodo kuwo shirkiyaada lala imanayo runtii arrinta noocaasi ee wax diinta meel ku leh maaha hadday khayr ku jirana saxaabadii nebiga ma seegeen iyo taabiciintii iyo quruuntii nebigu uu ku sheegay inay iyagu inoogu fadli badan yihiin 3 qarniyo hore lagama hayo kuwaasi baa la iman lahaa marka waxaynu leenahay shaygani weligeedba hal la qurqurxiyo waa bidcatu dalaala nebiguna sala allahu alayh wasalam khudabkiisa had iyo jeer wuxuu ku bilaaban jiray kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar wax kastoo diinta lagu soo dariyaa waa baadi kastaabana waxa weeye marka wax kasta oo diinta lagu soo dariyaa waa bidca kastaana waa baadi kastaana naarta ayay markaa qofka u horseedaysaa marka runtii ikhwaani waxaan aad iyo aad ugu naseexayn lahaa bidcada noocaasiya in laga fogaado bidcatul mawlid waa wax aan diinta meel ku lahayn bidac oo dhanna waa noocaa shay kastabana oo diinta loo nisbeeyana waxa muhiim ah oo iyadiyo waxyaabaha kale nebiga dabadii yimi ee diinteennu sugayso lagu kala saaraa sunnada tarkiyada ee nebiga in la barto shuruuddeeda sunnada wixii nebigu ka tegey ee dabadeed lala yimaado inay sax tahay iyo in kale waxaad ku kala garanaysaa 4 qodob baad ka eegaysaa horta waxaana diin ma yahay baad leedahay mise diin ma diin baa looga jeedaa mise riwaayad kale looga jeedaa hadday yidhaahdaan diin baa looga jeedaa oo aan nebi maxamed la iman sala allahu alayh wasalam waxaad leedahay wakhtigii nebiga wax maanicoo ku qumay oo u diiday inuu la yimaadaa ma jiraa sidii taraawiixda uu u diiday in jamac lagu tukado oo kale isagoo ka cararaya in lagu farad yeelo ummadda waxaad leedahay wax maanicoo u diiday sida taasoo kale ma jiraa oo nebigu aad leedihiin wuu samayn lahaa wakhtigiisii laakiin maanic hebel baa ku qumay waxaasaa u diiday haddii taana la waayo war nebigu wax ka soo noqnoqday oo si dhaba uu uga tegey ma yahay qasdan iyo badheer uga tegey waayo intaasoo sannad bay soo martay maalinkuu dhashay
qasdan baan uga tagay bareed hal mar lama iman markay caddaato inuu nebigu tarkigani qasdi yahay xaaladda noocaasiya waxay noo caddaanaysaa shayga noocaasiya ee lala yimaadaa inuu bidco yahay waayo waa sunnada nebigee tarkiyada nebigu wuxuu ka tegeyna waa lagu raacaya wuxuu sameeyeyna waa lagu raacaya labadaba waa lagu raacaya waa sunna tarkiya waa wuxuu nebigu ka tegey waxa uu ka tegey in lala yimaadaana waa bidcatu dalaala kaaga daranta nebigu inuu isniin dhashay waa la garanaya laakiin biitifaaqi ahlilcilmi waxaa la isla ogol yahay maalin quroo lagu kulansan yahay oo yoom ah inaanay jirin waayo wakhtigii nebigu dhashay wakhtigii jaahiliyada yahay wakhtigii dadku aanu diin haysan bay yahay wax waxyi oo ku soo degayana aanay jirin iyo cid markaa ummadda xaqa ugu yeedhaysa carabtii gaalada ahayd dhexdeedu dee nebigu ku dhashay sala allahu aleyh wasalam cid taariikh inoo qortay ma jirto caamulfiilun inay ka dambaysaa la hubaa oo ilaa 500 iyo markaa 170 wakhtigu ahaa laakiin yoom uu ka dhashiyo bishii lama garanayo qaarkood bal sanawaadkaan la garanayo ay dib iyo hor u kala rareen laakiin caamulfiil inay ka dambaysay shaki male sida awadeed baad arkaysaa 3 bilood bay culimadu isugu qabteen oo qolaba tiri mid buu dhashay qola waxay aan ramadaan buu dhashay qolana waxay yiraahdeen wuxuu dhashay bisha rajab loo yaqaan ramadaan ma dhalan qowlka ugu badan ee jumhuuru ahli ilmi ay qabaan majoritigu qabaana waa bisha rabiicul awwal inuu dhashay qoladii jumhuurka isku raacay inuu xaqan bishan dhashay rabiicul awwal yoomkiiba isku khilaafeen qaarkood waxay yaan waa maalinta labaad ee bisha qaarna waxay yaan waa 7 qolo waxay yaan waa 8 qolo waxay yaan waa 9 qolo waxay yaan waa 10 qolo waxay yaan waa 12 waana qowlka ugu sii badan qolo waxay yaan waa 17 qolana waxay yaan waa 18 qolo waxay yaan waa 20 qolana waa 22 tobanka qowl bay ugu kala tageen ahlul cilmi yoomka sababkuna waxa weeye xadiis saxiix amale la waa waqtigii gaalada dhexdeedii lama garanayo bal qolada le mu'arrikhiinta aad baanu taariikhda ugu xeel dheernahay waxay u badinayaan cilmiga xisaabta aad u yaqaana inuu bishan 9keeda ahaa oo waafaqsan bishii abriil 20keedii ama 22keedii sanadkii 517 517 qolada taariikhda le aad baanu u xaqiijinaa markay si badan wax isugu geeyeen halkaas bay ku soo ururiyeen waxay yiraahdeen waa sanadka 517 ee miilaadiga oo waxa weeyaan bishuna waa abriil 20keeda ama 22keeda marka waxaasi oo dhan hadii xigmadi ku jirto Allah inoo cadayn la hadii wax danayna kaga jirto laakiin waxba inaga ma jiraan nabigu ilma nabi aadan waa sayidkooda waqtigu doonaba ha dhasho maalin isniin aanu dhasho maalinkii isniinta ahana soon ku xusabu inagu yiri yeena soonta maalin kale raadiya iyo bil kale raadiya iyo bil heblaaya bilaha waxan kale wax jira ma bar qaarkood soontii xitaa nabigu yiri maalintan dhashay soon baa lala imanaya waa maalintii wax iguna igu soo dago labada sababood sheegay waxay yahdeen laba soomi maayo waa ciido maalinta mawlidka nabiga soon lagu loo dhawaan karaa ma jiro waaba ciidba hadalkii nabiga ka hor imanaya waxa rabaan cagsiyaan oo suucan wax u cunaan marka waxayaan waaba ciid waliba xaramka iyo in la qabto oo bartii nabigu ku dhashay lagu dhawaaday Makka iyo Madiinada uu ku aasan yahay iyo xagga in la tagaana waaba sii wacan tahay bay yaahdeen laakiin way khaldan yihiin halka waqti kastaba in la tagaaba fiican lil cibaada loo tago rabiic alawli qeyrkeedba xaramka hadii la heli karayo lil cibaada fi kulli waqtin loo tagaa way fiicanta waqtigana wax daliila ma laha marka ikhwaani hadalka markaan soo ururiyo waan idinku badiye raalina iga ahaan doontaane waxaan oran lahaa war bidcadaha laga fogaado war bidcada rabbi waxaynu la hortageynaa inay bidca tahay oo baadi tahay baadidaha laga fogaado nabigana ha lagu weyneeyo sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa in la raaco oo dariiqiisi la soo nooleeyo oo dacwada uu la yimi qof kastaaba intuu awood u leeyahay kor u qaado oo ummadda xumaanta looga digo wanaagana la faro taa lagu dadaalo laakiin bidco baadi ah waqti ha iskaga luminina wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam